haddad weligaa jecleed inaad real estate investment ku samaysato ilaa kii meel laga bilaabaad garanaynin maanta waxaan ku siinayaa from A to Z haddaad rabto real estate investmentiga iyo siduu u shaqeeya gebi ahaantiisaba walaal soo dhawo waxaan kula talinayaa inaad videogan save garaysato si hadhow ugu soo laabato aan la sheegarayso asxaabtaada siday u fahmaan ku bilaabaya the first step oo wax walba aad samaynayso you have to be clear on your strategy aad isticmaalayso waa inuu aad ogaataa dadka qaar waxay isticmaalaan wax loo yaqaan fix and flip property dayacan ayaa iibsanaysaa waa dayactiraysaa qiimihiisa kor u qaadaysaa kadib waa flip garanaysaa lacag ka samaynaysaa 20000 30000 to 60000 ka samayn kartaa wax loo yaqaan wholesale ayaa jira property ayaa contract ku qabanaysaa then waxa u sii assign garanaysaa qof kale oo sameeyo fix and flip sameeyo ama loo yaqaan cash buyer baa u sii gudbinaysaa wax loo yaqaan buy and hold jira oo kaliya ujeedada guriga u iibsanayso yahay inaad mustaqbalka sii karayso oo lacag loo yaqaan cash flow ka sameeyso tan saddexaad wax loo yaqaan subject to waaye subject to waa nidaamka guriga kula wareegayso laakiin guriyahaasi waxa loo yaqaan pre foreclosure aniga property ugu dambeeyay sidaan ku iibsaday waaye oo ah guriga ninka laha lagala wareegayo adiga soo dhaxgalayo si aad u caawiso gurigii magacaada ayaa ku soo wareejinaysaa then hadarat waa sii kareynaysaa am guriga adiga maamulayo okay haddaan ka socdo waa inaad mid doorataa haddii kale waad ku waalanaysaa mid dooro anigoo kale hadda just buy and hold aan sameeya waxaan kale ma sameeyo ha wholesaling ma sameeya ha yes wholesaling waan sameeyaa subjectu guryaha kula wareegaa laakiin nidaamka aniga aan isticmaalo kaliya aan businesskii inaan kor ugu qaado aan rabo waa buy and hold inaan guriga iibsado ujeedada aan ka rabo kaliya ay tahay inaan sii karayo lacagta cash flowgaasi aan ka helo bil walbo laakiin aan ku bilaabo okay kaasi waa marka koowaad step 1 step 1 ka soo dhamaato the second step waa location way waa location inaad doorato way location kana aday ku xiranta meesha rabto inaad investment ku samaysato laakiin marka fiirinayso waxa fiirisa crime rate ka fiiri employment rate ka fiiri population ka fiiri home price ka fiiri rent price ka fiiri waxa fiirisa property tax ina fiirisa way waxa kale fiirinaysa meesha landlord friendly inay tahay inta ina fiirisa way si uu ogaato meesha location fiican ay tahay step 3 waa you have to get your finance in order or like mortgage pre-approval letter ina soo hesho way unless I cash ku iibsananin dadka qaar 60000 80000 cash ku iibsan karaan hadda cash ku iibsan karto you can skip this step haddii kale waxay noqonaysaa inaad bangi aado bangigaas kugu xir doono credit score gaad fiirin doona employment gaad fiirin doona wuxuu fiirin doonaa loo yaqaan DTI oo debt to income ratio fiirin doona deymaha lagu leeyahay fiirin doona kadib wuxuu ku siinaya warqad loo yaqaan pre approval letter ku siinaya step 4 real estate agent ina hayrateen noqonaysaa oo property MLS kaaga soo diraayo haddaad taa rabto inaad sameynin oo real estate agent hayranin waxa aadi kartaa website-da real estate investmentiga isticmaalaan real estate investmentiga isticmaalaan oo kamid yahay PropStream, InvestLift, Flipster website-daas ayaa aadi kartaa si property-dan uga soo hesho haddaad awoodin property-daas waladaas waxa kugu xiri doonaa lacag $100 bil binaad bixiso haddaad awoodin guryahan waxa ka eegi kartaa website-da free-ga ah like Zillow, Realtor, Redfin website-da ka fiirin kartaa kadib marka inta soo ogaato waxaa noqonaysaa property-dan ina analyze garayso oo ina deal fiican inay yihiin ogaato so property-dan aniga waxaan isticmaalaa investment analysis tool aan isticmaalo oo aniga aan rangarayo so waxyaalo fara badan in aan samayso loo baahan jirta wax loo yaqaano CMA comparative market analysis oo ah like guryaha noocaas la mid inta lagu kala iibsanayo inaad soo ogaato waaye saad u soo ogaato wax loo yaqaano ARV after repair value marka analyze garanaysa gurigan waxyaasha ugu muhiimsan fiirsay tahay lacagta down payment inta ku kacayso lacagta closing costiga wax loo yaqaano net NOI jira net operating income wax loo yaqaano cash flow jira monthly cash flow wax loo yaqaano cap rate jira then waxa ogaanaysa gurigan good investment inuu yahay in kale hadda inta ka soo dhamaato guriga aad ogaato like aan rangarayso hadda rabto aan ugu daraya taas hadda rabto waxa nambarada ku rangaranayo investment analysis tool isticmaala aniga literally waa $25 waaye hadda rabto website ka soo qabanaysa hadda serious ka tahay waaye it's literally waa gelinaysa nambarada everything ku rangaranaya shaashadan ka tusi doona step 4 waxa loo yaqaano you have to make an offer oo like waxa u diraysaa lacag guriga intaas ku iibsanaya maadaama nambarada soo sameysay aad dhahday like guriga aniga intaas rabay inaan ku iibsado let's say 200000 ku iibsanaya amar da offer aad dirsan karo ama real estate agent ina hayrateen noqonaysa oo soo kugu diro real estate agent da hayratana commission kugu charge gareyn doona soo la soco usually hadda adiga aad iibsanayso guriga wax commission ma waxa bay garanaya seller ka bay garanayo adiga free buu ku yahay waana chance ba ka faa'iideysan kartaa taasi okay so ta hadda samayso oo an offer then waa lagu soo accept garanaya that offer there's only 3 things that samayn karaan wax loo yaqaano accepted reject and counter offer so those 3 hadday dhahaan way nagu yarta lacagta then waa la heshiinaysaa haddana lacag kale ayaa siinaysaa then boom waa isku dhamaatay
واسكو دماتي then closing day la qabanaya title company lagu wareejinaya adiga adaa qabsanaya hadii real estate aan la shaqeynaynin title company ina raadisay noqon doonta that title company gaasi ayaa all the packs agreement everything iyo wax loo yaqaan disclosure forms ba u gudbin doonta then maalin baa la qaban doona guriga wala gabagabeynaya Voila, you have your first rental property wahaysata hadda rabto real estate investment literally real estate investment saas u shaqeeyaa so haddaad wax ka faa'iiday in yara ka faa'iiday insha Allah videogan follow gare nasoo follow gare insha Allah asxaabtaada la sheegare hadda rabto inaad guri iibsato aan wax ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com hadda rabto real estate investment aad barato step by step guide how to buy your first rental property in aniga ku tuso waxa ka soo qaban kartaa website-kayga sahaninvestor.com. Assalamu alaykum.